بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ubadkii caruurta waxaynu ognahay aabanimada iyo hooyanimadu waa nicma waa hiba min allahi subxaanahu wa tacaala yahabu liman yashaau inaatha wayahabu liman yashaau dhukuur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إلهي سبحانه وتعالى هو بأو بحيوية قفك المهواية أيا قران كرا نعمة لا أنت سيدة دبا نعموينك بنادم كوحو الدريمة مركو وايو عنادو مركا أكتادا تالا قيمة بدن مليه لكن مركا قاعد طابع كو مغرسة cunadu qiimaha ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya inuu ilmuhu hibo yahay inuu nicmo yahay inuu noloshan aynu ku noolahay ziinadeeda yahay almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati dunya nolosha dhalaalkeeda inuu yahay in min shahwaati nafs zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa'i walbaniin waxaa ilaahay inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala dadka saalixiinta inay ku ducaysanayeen hab lana min aswaajina wa duriyaatina qurata acyun kuwa ishu ku doogsato in ilaahay subxaanahu wa tacaala uga dhigo waxaynu ognahay kobcintooda iyo barbaarintooduna cibaado ilaahay loogu dhowaado inay tahy qofkii laba gabdhood barbaariya ama saddex barbaariyu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis badan ku tilmaamaya amase wuxuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka in camalkiisu go-o marka uu dhinto saddex shay mooyaane sadaqa jaariya oo uu ka tegey masaajid ha noqoto ceelbiyood ha noqoto madrasa uu dhisay ha noqoto waqfi jaariya uu ka tegey ama cilmi la intifaacsado uu ka tegey culammadeenni muslimiinta hore allah u naxariisto maanta shaafici madhabkiisa inta lagu camal falayo waa cilmun yuntafacu bihi uu ka tegey sadaqu u yahy amase buu nebigu ku tilmaamaya waladun saalixun yadcu lah ilmo saalixa ilmo wanaagsano uu ka tegay oo u soo ducaynaya sidaa uu haddaba ilmuhu nicmo iyo wanaagga u yahy ayaa nicmo waliba waa mas-uuliyaad ilaahayna weydiinayo aayaddu sheekhu akhriyey يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وانا كي نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي مسلم كي لي وإن لولدك عليك حقا المها قوين حق قولي وحن كسو كوبي يا مركا هانتيدا وقبورنا أينو هينا أينو كتغي كرنا وإلمو صالحة وإلمو لها قاتشيي inagu ka bulsho ahaan mid si fiican baynu u fahamsannay ilmaha inuu waxuu cuno la siiyo oo uu ilmo xooggan oo naaxsan oo caafimaad qaba noqdo hadduu xanuunsado in la daweeyo oo dhakhtarka la geeyo oo loo dadaalo hadduu yar yahay in la tallaalo oo xanuunada mustaqbalka ee laga cabsanayo laga tallaalo waa feeding curing iyo vaccination taqdiya iyo tatciim iyo cilaaj haddaba waxaan leenahay intaasi jidhkay ku saabsantahe intaas oo nafsiya buu u baahan yahay ilmuhu sida haddii cunno aan fiicnayn loo siiyo uu u bukoonayo ayaa haddii suluukiyaad iyo afkaar iyo dhaqan iyo caqaa'id aan fiicnayn lagu ababiyo uu dhaqankiisu u bukoonaya yani waxaa bukoonaya waa maxay waa suluuggiisii iyo dhaqankiisii haddii waxa la siiyey ee lagu canqariya aanu wax fiican ahayn ilmuhu sida haddii waynu aragno wax weecadoo muuqda inuu sameeyey aynu nooc min alcilaaj oo ciqaaba u samayno ayuu u baahan yahay inxiraafaadka markuu ku dhaco in la toosiyo oo qalqallooca laga bi'iyo
sida uu ugu baahan yahay tatciim qofku marka uu ku nool yahay meel xanuunadu ku badan yihiin مثلا dhakhaatiirta ama neersinka ama waxyaabahaasi meelaha xanuunadu faafa ay degan yihiin jooga marka hore iyagaa la tallaalaa waxaa loo tallaalayaa inaan xanuunkan ay daweynayaan iyagoo aanay qaadin dadku marka uu ku nool yahay meel culturally kala gedisan gaal iyo muslim iyo cid waliba degantay waa meelo khatara markaa multicultural meelo dhaqamo badan laga haysto markuu qofku degan yahay wuxuu u baahan yahay kow intuu yaryahay in si fiican loo tallaalo oo laga tallaalo xanuunada bulshadu qabto oo ay maxay ugu horeeyaan xanuunada caqadiga ah intuu yar yahay in loo laqimo oo la baro oo lagu tadriibiyo caqiide islaamiya saxiixa si uu tallaal u helo maxay u taraysaa waxay u taraysaa inxiraafaadka suuqa markuu u baxo inaanay dhibin inaanay mashkilad ku noqonin sidii kii laga tallaalayay xanuunka laga tallaalayay haddiiba ay dhacdo bacd alinxiraafaat inuu ku dhacana in la cilaajiyo waxaan qadiyadan uga dan leeyahay markaa geedka marka la beero wuxuu u baahan yahay hawl badan oo kale inta midhaha lagu rido uun biyo laguma shubo lagama tago ee waxaa la tijaabiyaa in ciidda loo faadhfaadho loo abqaalo waxaa la tijaabiyaa in minerals ama wax nafaqa leh diga iyo waxay doontaba ha noqotee wuxuu nafaqo ka helo lagu shubo waxaa la tijaabiyaa in laysku duduwo oo dhirtan magaalada hadiyo goor dhaadheer u aragteen markay yar yihiin baa bir lagu duuduuba si ay qumaati ugu baxaan aanay qalqalloocanin waxaa la tijaabiyaa in la buufiyo oo xasharaadka iyo waxa kale laga buufiyo waxaasoo dhan waxa looga dan leeyahay inuu geedkani si fiican u baxo waxaa la mid ah baynu leenahay ilmaha korintiisu waa saas oo kale wuxuu u baahan yahay intuu yaryahay in la nafaqeeyo cunno ahaan caqli ahaan dhaqan ahaan ilmuhu da-duu joogay ku xidhantahy oo marba waxbuu u baahan yihi culamaai nafs waxay idhaahdaan da' kasta maalan sanad jir ilaa 4 jir waxa ugu badan ee uu u baahan yahay bay yidhahdeen waa xanaan in kalgacal la tusiyo dhabta lagu hayo la jeclaado waa waxa ugu foosha xun la bay yidhahdeen da-daa markuu yahay in loo dhiibo cid ajanabiya meelahan kindergartenka iyo meelahan carruurta yar la geeyo dumarka shaqo tagaan waxaa ka qurux badan bay leeyihin qofkaasi xanaanka wuu lumiyaa bay leeyihin waxa fiican bay yidhahdaan waa more emotional bay yidhahdaan ilmuhu sanad ilaa 4 jir intuu ka gaadhayo waa emotional saa daraaddeed taabashadaa la taabanayo dhabanka loo salaaxayo ama madaxa loo salaaxayo ama la dhunkanayo ama dhabta lagu haynayo ama la soo dhawaynayo ayaa uga naxariis badan waxa kaloo dhan markuu da-daa soo yaro dhaafo xaddu tamyiiz buu galaa waa marka talqiinku bilaabmo in weyse la baro in caqiido la baro in waxbaa loo laqimayaa marka uu soo gaadho 10 jir meelahaasi waa marka uu waanada qaadan karo dhowr iyo 10 jir meelahaasi marka uu soo gaadho wuxuu u baahan yahay waxyaabo wixii hore ka gedisan bay yidhaahdeen kow alictiraafu bihi in la ictiraafo maxaynu uga jeednaa wuxuu jecel yahay istiqlaaliya inuu dee qof majuura iska dhigo marka adigu dib ha u celinin oo ku 15 jir iyo ku 16 jir iyo ku 4 jir waxaba haddaad tidhaa carruurtii meeday markana carruur maaha wuxuu isku dayayaa inuu mustaqil noqdo wuxuu u baahan yahay maalan waxyaabo badan inaad ka talageliso laakiin aad tilmaamto waxaan idhahdaa maalan suuqa intaad tagta 2 maroon intaad soo qaada ha odhan kuwan gasho laakiin waxaa ka qurux badan bay idhahdeen intaad kaxayso suuqa geyso inaad la taliso isaga waxaa laga yaabaa miduun inuu iska qaato inaad taa ceebteeda u sheegto tidhahda taasi ma fiicna tan baa waxaa ku fiican inaad qancin karto la taliso si uu u dooran karo waxa wanaagsan waayo waxaa loo train garaynaya qofkan inuu berri kaa tago inanta saad guriguun ugu hayso in guursado maaha
وين يدو عقليا مجور نقطي وحقدان كرتا وحيبسان كرتا وطالين كرتا وين يقولي كلا تكتا سادر هدد هدي دوري تبنشير قفكو سو قادو وين مجور نما الله توبرا بين هذا مركا قفكو إنه مستقل نقون كرا وين الله توبرا إن لا اعترافه بهيس يوحي سلاقا وين الله توبرا إنه مسؤولية قادة والله توبرا ودي إلهي بقرآن كنت المامية أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدين تدمانتين قفكو هدو قان قادا أمام الله إنه مسؤولية هي وآخر يسقى وحلا ويدينيو لكن هداد أدقو ولا دقنتو مركا قف قان قادو إلهي بليوان حسابنا يا هداد أدقو عدم المسؤولية ولا دقنتو هذا قردران دا مركو سو قادو نين يقبركو دوني يبها النقضة وإنه قف مسؤولية قادي كرا نقضة وحلو آميني كرو وحي الله درو وحي وصاقة بنيو وحي شقال الله ديبيو وإنه قف وحلو آميني كرا وقادي كرا لكن هداد كدكتو وحميال اسكفر ديونا وحوال بالله قبطو ومركو بحيانا كمان لو سيحن حلو داركنا انت الله كاويدي ميل يسوقو سارو ادا حمين يا قفك حوبه هي قفك انه شقايsto mar wadu daada soo gaaro oo mas'uuliyada qaado waxaan ku soo koobaya marka tarbiyadu waxay yiraahdaan culimadu intay cilmi tahay waxa ka badan bay yiraahdaan intay fantay cilmiga inta badan waa nadari waa meel baa la fadhiistaa war baa la isku akhriyaa laakiin intay fantay fanku waa waxyaabaha tadriibka u baahan tusaale ahaan gaadhiga wadistiisu intuu cilmi yahay waxa ka badan intuu fan yahay مثلا haddii inta class lagu geeyo lagu yiraahdo gaadhiga sida loo wada lagu baraya oo lagu yiraahdo furaha lagu shidaa dabeetana handbrake laga saaraa geerka la galiya clutchka la taabtaa brake la qabtaa steeringka laga wada wakaasa ka xaad lagu yiraahdo ka xaynaysa inta lagu sheego waa theoretical wala yaaba qoladiina darawalnimada qaadata halkan imtixaan theory in la idinka qaado sheegaya qofku inuu fahamsan yahay waxa kan lagu tilmaamayo laakiin inta darawal lagu noqdo darawal waxa lagu noqdaa marka qofku uu sameeyo tababar badan saacado badan oo wadisa oo qalada oo dhicisa markuu sameeyo kadib uu darawal noqdaa waxay yiraahdaan tarbiyadu waa fanni u baahan qofku inuu qaato training kaasi waagii hore aynu dhulka muslimka qura joognay ee reerku wada deganaa ee ayeeyooyinka iyo eedooyinka iyo habaryaruhu guriga joogeen ee adeera iyo abtiyaal hareerahaaga deganaayeen waxaad haysatay violating ama dad guidance-ka ku siiyo waaweyn oo kaa weyn laakiin dhulalkan galbeedka markii la yimi ama afrikada tan ama meel waxa laga yaabaa inaad guri cidla degto eediya habaryar iyo cidil toona ku dhaweey idan waxaad u baahan tahay wax badan oo tababara inaad soo qaadato marka waxaan leeyahay hablaha iyo wiilasha yaryarna hadday guri ku sii socdaan tababar ha la siiyo ilaan goonay u baxayaano meel cidlaabay tegayaane tarbiyaduna waa waxaa u baahan barashadee ha la isku dayo kutubta laga qoray ee islaamku qoray iyo qur-aanku wuxuu ka sheegay iyo sunnadu waxay ka sheegtay waxaasoo dhan in dib loogu noqdo cilmiyana loo barto fanni ahaanna lagu tareen gareeyo intaas baan tilmaami lahaa السلام عليكم ورحمة الله